السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي دمان صاحبة خالقة كسو دبادة مقال كينا مانتا الحمد لله وقدام بين يوتيوب كيني وانا الله صوف صحي وانا الله أقول هذا إن المقال سوق لينو وحانا أقول لك بصدي مقال كي وقدام بيي محكمة دميسي أها marka hadeer alxamdulillaah waana la soo ogolaaday marka saaxiibayaal waxaan idinka codsanayaa muuqaalka inaad inoo like gareysaan haddii aad muuqaalka like gareysaan YouTube-keena hoos ay u sii dhacayaa marka si uusan hoos ugu sii dhicin muuqaalka inoo like gareeya mahadsanidin muuqaalkani maanta waxaan idin la wadaagi doonaa sida loo sameeyo muuqaalada wacdiga ee gaagaaban TikTok la soo dhigo runaantii part 1 ayaan ka soo sameeyay haddii aad rabto commentiga ayaan ku soo dhigaya halkaas aad ka daawan kartaa waxyaabahan muuqaalkan u isticmaali doonaan waxaan ku soo dhigi doonaa Telegram groupka commentiga ugu hore ayaad kaga soo biiri kartaa Telegramkeena muuqaalkan waxa iga soo codsaday saaxiibo fara badan oo janaalkeena ku xiran marka waxaan bilaabay inaan codsiyadiina idin soo tixgeliyo cid waliba codsi soo dhiibatayna codsigeed waan ku soo maqanay insha Allah waan aga soo jawaabi doonaa ugu horreyn aan isla daawano muuqaalkan kadibna waxaan ku tusin doonaa sida loo sameeyo dhalinyaro waxaan leeyahay akhriya dumba wax xogsan karaysaane ciyaarta dhaafa nolosha dhab u waajaha si dhab ah nolosha waajaha waxaad go'aansatana waad xaqiijin kartaa waxaan rajaynayaa inaad soo daabateen muuqaalkaasi waxaan arkaynaa habka loo sameeyo muuqaalada noocaas ah ugu horreyn waxaan soo furan doonaa application-keeni CapCut sidaad ka warqabtaan editka ugu fiican ee wax lagu edit kareysto marka mobile la isticmaalayo waa application-kani CapCut ee ay cid waliba fahmi karto okay markaan sidaan soo furto waxaan dooran doonaa new project ayaynu soo galaynaa kadibna waxaanu sugaynaa inta ay noogu soo baxayaan ama inooga soo muuqanayaan waxyaabihii aynu rabno marka hadda new project markaan sidaan u soo galo waxaan soo dooran doonaa background-ka aan rabo inaan isticmaalo ayaan halkaani ka soo dooranaya okay background-iskan ayaan rabaa inaan isticmaalo waan ku soo darsan doonaa sidoo kale waxaad ku soo darsan kartaa muuqaal background ahaan muuqaal waad ugu soo darsan kartaa muuqaalkii aad adiga rabto background ahaan waad u isticmaali kartaa haddii uu muuqaal ku qanciyay oo jiro oo aad rabto inaad isticmaasho waad ku soo darsan kartaa okay aniga hadeer waxaan ku soo darsan doonaa sidoo kale muuqaalkan ayaan ku soo darsan doonaa kadibna aad ayaan soo dhihi doonaa waa kaliya background ahaan adigan waan ku soo diri doonaa insha Allah Telegramkaas haddii aad ku jirto waad helaysaa Telegramka waxaad kaga soo biiri kartaa commentiga ugu hore okay cabirka waxaan ka dhigan doonaa cabir TikTok ah kadibna tik ayaan soo dhihinaa okay kadib waan soo zoom garay doonaa oo waxaan la ekeysiin doonaa cabirka aynu rabno sidoo kale midkan wuu la eg yahaybo iska daa waa caadi wax yar soo zoom garay sidoo kale midkan lama eg xoogaa soo yar zoom garay okay midkan wuu la eg yahay cabirkii oo saxan markaynu sidaan marayno waxaan sameyn doonaa overlay ayaynu tagaynaa kadibna waxaan dooran doonaa add overlay ayaynu sii dhahaynaa waxaan ku soo darsan doonaa sawirka sheekha aan rabno photos ayaynu imaanaynaa sheekha aan ku sameyn doono waa Sheekh Mustafa okay sabiraantan marka midka rabtid ay soo dooran doontaa waa ku soo diri doonaa dhammaan Telegramka soo dhigi doonaa aniga hadeer midkan ayaan soo dooranayaa okay markaan midkaani soo doorto waa ujeedaa hadeer waa sawir bila background ah wax background ah ma wato hadeer marka waan isticmaalayaa asiga ayaan isticmaalayaa sida arkaysa hadeer waa sawir go'an inuu yahay waa la dareemayaa balse waxaan ka dhigi doonaa sawir caadi ah ayaan ka dhigi doonaa yacni sida muuqaalada wacdiga loo sameeyo oo kale ah dhankaanu soo wad waxaad imaanaysaa qaybtaani mask ayaad imaanaysaa markaad mask timaado horizontal ka dooro horizontal markaad ka doorato calaamadan haddii aad soo jiido waa ujeedaa sheekho yara khafiif ayuu noqday okay calaamada kale soo qabo sidaas u soo yara deji waa ujeedaa markaad sidaas u soo yara dejiso sheekh xoogaa wuu soo yara baxayaa oo wuu soo yara iftiimayaa okay kadib marka waxaan sameyn doontaa calaamadani hoose ayaad u jiidaysaa sidaad arkayso calaamadani kalena xoogaa kor ayaad u yara jiidaysaa oo lama rabo in la fahmo sawirkani inuu yahay sawir go'an ama sawir haaf ah inuu yahay in la fahmo ma la rabo sidoo kale markaad sidaas yeesho tig waad dhihi kartaa haddii aad rabtana mirror ayaad isticmaali kartaa adigoo kaliya sameynaya inaad sidaas mirrorka u kala bixiso kadibna qabanaya falaadhan hoose calaamadaasi kadibna ku aadinayo sheekha saro u yara qaad kadibna sidaas oo kale ayaad ka dhigi doontaa okay
sidaas oo kale waad ka dhigan kartaa asigana tig ayaad dhihi kartaa balse anaga horizontalkeena ayaan isticmaalaynaa oo horizontalkeena ina keen oo ujeeda hadeer horizontalka markaynu nimaano sideeni hore ayaan ka dhigan doonaa okay sideen hore ayaynu ka dhiganaynaa hadeer marka waa sidaas qaabkaas ayuu noogu soo baxayaa midkaan hoose ayaad diidaysaa haddii aad rabto inaad khafiif geliso midkaan hoos waa ujeeda haddii aan kor u celiyo khafiifka uga baxaa haddii aan hoos u naqana khafiif ayaa galaya marka midkaasi kore ayaad adeegsan kartaa si aad u khafiifiso sawirka aad yacni waxaa la rabaa keliya in sheekha wejigiisa si fiican loo arki karo inta kalena ay ku milanto backgroundka dhexdiisa ay caadi ugu milanto haddii aad sidaas yeeshan uu wada baabaa lama rabo oo meel macquul ah kaliya ka dhigo sidaas oo kale kadibna tig ayaan soo dhihi doonaa kadibna waxaan sameyn doonaa halka aan rabo ayaan geesan karaa okay haddii aad rabto geeskaas ayaad dhiganaysaa haddii aad rabtana okay kadib la sin sawirka muuqaalka la sin okay sawirkii muuqaalka ayaan isla simeynaa meel walba geesid marka wuxuu yeelan doonaa backgroundka nooca uu meesha ay leedahay ayuu yeelan doonaa kadibna sheekha sidaas ay soo zoom gareyn kartaa waa ujeedaa hadeer okay haddii xoogaa la yar fahmayana maaskigaaga ku noqo maaskigan ayaa laga habayaa maaskiga iska sax iska yara sax maaskigaas iska yara sax kadibna waad arki doontaa siduu kugu soo baxi doono waa ujeedaa maaskiga ayaa sidaas ag habaysanaysaa okay hadeer marka sidaad arkayso wuu inoo samaysan yahay sheekha halkaas inoo yaalaa marka waxaan u baahannahay codka sheekha inaan kusoo darsano audio ayaynu imaanaynaa kadibna waxaan dooran doonaa extract ayaynu soo dhehaynaa waxaan soo dooran doonaa sheekha wacdigiisa sheekha waa ka kadibna codkiisa ayaan soo qaadanaynaa extract ayaan soo dhahnay waa ujeedaa codka intaas ayuu la egyahay okay intuu codka la egyahay ayaan la sameynaa iska jar intaani kadibna iska delad garee sidoo kale overlayga dooro iska jar sawirka sheekha iska delad garee kadibna calaamadaas iska delad garee mar waliba okay hadeer waa ujeedaa marka sidaan ayaan codka ugu soo darsanay codka wax yar aan daarno si aan u maqalno sheekha waxa uu leeyahay dhalinyaro waxaan leeyahay akhriya duba waa xoogsan karaysaane okay qoraal ahaan waxaad kusoo daraysaa dhalinyaro waxaan idin leeyahay akhriya durba waad xoogsan karaysaane okay qoraalka ayaad imaanaysaa tagastiga dhalinyaro waxaan idin leeyahay ku qoro adiga wuxuu sheekha dhahayo ku qoro akhriya durbo waad xoogsan karaysaane ku qoro halkaas waad xoogsan karaysaane okay kadibna waa qoraalka ayaan yara jabinaya waa kala yareynaya yacni waxaan ka dhigi doonaa qoraal si taxana ama si hoose iskula socdo dhalinyaro waxaan idin leeyahay akhriya durba waad xoogsan karaysaane okay anaga hadeer qoraalka laguma soo dari doono yacni waxaan diidayaa muuqaalkan inuu inoogu dheeraado waan soo koobayaa oo kuma dari doono halkan fontes imaa farta nooca rabtid kasoo dhigo haddii aad far waaweyn rabto waataa farta sidaas soo weynayso ugu darso qaybta dhex waa ku aadisan kartaa qaybta hoose waa ku aadisan kartaa qoraalkaaga halka aad rabto ayaad dhigan kartaa oo wax dhib malahan fartan halkaani ayaad ka bedeli kartaa okay hadeer fartaasa iska ahaato kadibna waa ujeedaa coloriska halkan waa ka bedeli kartaa colorka rabtid ayaad siisan kartaa waa ujeedaa colorkaas cagaarka kuwaani gadaal backgroundka kale waa isticmaali kartaa sidaasi ah kuwaani dhan waad adeegsan kartaa aniga hadeer midkaas kusoo deynayaa kadibna animation ayaa imaan doonaa animation ayaan u yeeli doonaa okay animationka marka nooca rabtid ayaad asigana ka dooranaysaa dhalinyaro waxaan leeyahay akhriya duba kadibna animationka laba ayaa loo qeybiyaa in out in waxay qaabilsan tahay markuu soo galayo outna markuu sii baxay ay qaabilsan tahay kadibna tig ayaan soo dhihi doonaa waan arki doonaa dhalinyaro waxaan leeyahay akhriya duba waa xoogsan karaysaane okay waa la sameynaa muuqaalkii waxa kan isla sameynaa qoraalka dhalinyaro waxaan leeyahay akhriya duba waa xoogsan karaysaa haddii aad rabtan inuu isla socdo sheekh hadalkiisa iyo qoraalka dooro kadibna animation ku soo noqo oo inkaaga buuxi calaamadaasi sidaas yeel dhalinyaro waxaan leeyahay akhriya duba waa xoogsan okay kadib waa ujeedaa marka xoogaa calaamadaas yara naq kadibna dhalinyaro waxaan leeyahay akhriya ku soo dhufo soo tig gareyso dhalinyaro waxaan leeyahay akhriya duba waa xoogsan karaysaane waa ujeedaa waa isla dhammaanaya sheekh hadalkiisa iyo waxa dhalinyaro waxaan leeyahay akhriya duba waa xoogsan karaysaane
okay xoogaa yar aan ku darno dhalinyaro waxaan leeyahay akhriya duba wax xogsan karaysaane marka sidaas uu yahay adeer marka waxaa ka maqan waxyaabaha codka tilmaamayo okay kadib overlay ayaan ku dhufan doonaa add overlay ayaan dhihi doonaa markaan add overlay dhihi waxaan soo dooran doonaa sidaad u jeeda halkaan waxaa ii yaalo codad ama muuqaalka aad soo aragtay waxyaabaha loo isticmaalay okay marka halkaan photos ee imaanaya waxaan kusoo darsan doonaa sawir ka mid ah sawirada halkaan igu jiro oo aan aniga mar hore soo degsaday adiga haddii aad rabto waxaan ku dhahay waxaan soo dhigayaa telegramka ayaan soo dhigayaa telegramkana commentiga ugu horeeyo okay midkaan ayaan soo dooranayaa kadibna tig ayaan soo dhihi doonaa markaan sidaan soo tig gareysto waa u jeedaa der background ayuu wataa marka si aan background ugu reebo waxaan imaan doonaa remove bg kadibna chroma key ayaan dooranayaa kadibna colorka madowga ayaa sidaas igaaga baxaayo waa u jeedaa calaamadaas marka sidaan u wad intaa rabtid geeso kadibna tig soo dheh kadibna geeskaasi ku aadi okay geeskaasi ku yara aadi markaas sidaas geeskaas u saarato kadib la sin muuqaalkaaga la ekeysi okay muuqaalkaaga la sin waa haddii aad rabto khasab ma ahan inaad kan isticmaasho balse haddii aad rabto inaad waxa ka muuqaalkaaga hor usii qurxisato kaliya ay qaabilsan tahay kadibna add overlay ku noqo oo waxaa soo dooran doonaa muuqaalkii muusiga kala tilmaamayay aynu soo dooranaynaa okay ugu horreyn midkaan ku soo darsan doonaa sidoo kale hal mar ayaan ka soo noqonaynaa kanna waa soo dooran doonaa kadibna waxaan soo dhihi doonaa add ayaan kusoo dhufanaynaa okay labadood hadeer way inoogu jiraan midkaan ugu horeeya ee inoo dooran ayaynu waxaanu dooran doonaa remove bg kadibna chroma key kadibna madowga sidaasi ayuu kaaga baxayaa kadibna tig soo dheh oo halkaani la sin halkaasi gee okay halkaasi la sin oo halkaasi gee sidaasi oo kale dhexda ka geli hataa haddii aad rabto ku dhex aadi oo labadood ha u dhexeeyo okay marka sidaas ayaa midkaasi ku sameynay midkaani kale waxaan sameyn doonaa asigana chroma key ayaynu dooranaynaa kalarka madowga jaa wuu naga saaray kadibna tig ayaan ku dhufanaynaa kadibna waxaan dhigan doonaa qaybtaani ayaynu dhiganaynaa okay midkaan marka haddii aad rabto inaad muuqaalka la ekeysiiso keliya waxaad dhihi doontaa duplicate ayaad dhehaysaa muuqaalka wuu la ekaan doonaa okay kadibna ilaa inta uu hadlayo ayuu la ekaanaya midkaan kalena zaid ayuu dheeryahay waad jaraysaa midkii kugu dheer iska jar keliya waxaan ku tusiyaa aniga stebiska loo marayo waxyaabaha kale adiga ayaaba fahmi kara dhalinyaro waxaan leeyahay akhriya duba wax xogsan karaysaane okay kadib marka waxaa la sameynaa midkaan soo qabo la sin labada dhinac kadib waad arkaysaa dhalinyaro waxaan leeyahay akhriya duba wax xogsan karaysaane cayaarta dhaafa okay cayaarta dhaafa ayaan ku dari doonaa qoraalka kale adiga ayaa laga rabaa shiikhan wacdigiisa waa ku soo dhigi doonaa cayaarta dhaafa ayaan ku darayaa bis cayaarta dhaafa ayaan ku darayaa okay cayaarta dhaafa steelkeeda ayadan farta noocan rabaan ka dhiganayaa cagaarkaas ayaan ka dhigan doonaa kadibna fontes ayaan tagi doonaa fonteska ayaan ka bedelaynaa okay fonteska ayaan ka bedelaynaa okay cayaarta dhaafa farta noocaas ayaan ka dhiganayaa okay cayaarta dhaafa kadib waxaan tagi doonaa animation ayaan imaanaynaa animation ayaan u yeeli doonaa cayaarta dhaafa cayaarta dhaafa cayaarta dhaafa cayaarta dhaafa cayaarta dhaafa markuu le intaasaa ka rabnaa kadibna animation outkaana imaanaynaa jandhabu waajaha okay kadibna tig ayaan soo dhihi doonaa wax xogsan karaysaane cayaarta dhaafa okay animationka ku noqo marka cayaarta dhaafa iyo waxayna isla socdaan rabnaa kadibna animationka inuu keeni doonaa sidaas u badi cayaarta kadibna tig soo dheh karaysaane cayaarta dhaafa nolosha dhabu waa u jeedaa marka qoraalkaaga sidaas ayaad ku wadaysaa ilaa uu muuqaalka ka dhammaado kadibna waxaad ku samayn doontaa export ayaad dhihi doontaa waxaan rajaynayaa saaxiib yaal inaad fahamteen muuqaalkan uu wax badan idinka caabin doono haddii aad muuqaaladan keliya samayso oo aad tiktokaaga dhigato waxaan waa tiktokaaga inuu aad u kala kaci doono sirtaas hadeer iga qabsada tiktok furo kadibna muuqaalo noocan ah idid gareyso
waxaan filayaa inuu TikTok-gaaga noqon doono high sare waad aragtay muuqaalada badanaa TikTok-gan la soo geliyo ama TikTok noocyadan muuqaalada la soo dhigo aad buu followers badan u helaa marka adigoo khayrna gudbinayo haddii aad followers fara badan hesho taasi run ahaantii waa sharaf iyo karaamo wax xunna kuma aadan soo caan baxin marka isku day inaad samaysato akoon haddii aad rabto inuu kuu kalkaco wacdiyada noocan ah soo samayso kadibna dhigo TikTok-gaaga saaxiib yaal waad mahadsantihiin daawashada muuqaalkan fiidiyoogina like gareeya mahadsanidin intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo